هذا قبل معنا دمشق يا واحد كل هذا نكاد والعاصمات قباوانا إيش الفارس وانا صوص على السوق ده كده كده هي أنا هي واي لحظة محمد وريا عبد الله محاد عي ولا محاد عي والله انت اصلا دلوقتي انا وتوبرت بكتشنا لمبرنا ما نهلين هذا لكن توبركي وانا حرمي وعن شعنا مردون هنا ضلت سؤال ان شاء صدرت له تليفوننا انا لو فصحي غير لمبر بانا وعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرفت له ومركله iyo muuqaal cusub bartan aad iga dheehanaysaan waa barteen ku kulmi jirnay walaal ka miliyo baro aad iyo aad ayaan mahadsantihiin walaalayaal warxumo lagu waa waxa daaragti khadka ugu jira si toos ah dhalinyaradii joogtay Eliteria oo ciidankii la qaaday warxumo lagu waa qaraabadii walaalaha iyo ehelka iyo seediyada iyo dad badan ba isugu jireen iyo Soomaali weyn oo dhan oo wada walaalaha iyo muslimiin iyo Soomaalinimo ah dadkaas oo dhan way caafimaad qabaan warkii kutirkuteenta ahaa oo xumaa oo la sheegayay oo la lahaa waxa way ciidamada lagu daray Ethiopia la geeyay waa la laayay cidi kama harin warkaas waa ku daayay waa dhamaaday kafal baan u wici doonaa si daaragti aan ula hadli doonaa waadna arki doontaan dhigihiina aad ku maqli doontaan insha Allah ta'ala annagoo waliba familkii ay ila joogaan ay hareero fadhiyaan kulligayna waanu la hadli doonaa waana isu dhiibi doonaa waliba iyadoo waraysi kaliya anigu aan waraysanaya aysan ahayn waxaan halkan marka rabaa inaan halka iraahdo dadka waalidiinta ah waxay dad bay hadda noo direen oo lambarana loo qorayaa lambaray dhalinyaradu qori doonaan qayb baa waalidkood rabta lambar bay haystaan hal lambar bay haystaan fail bay ugu jiraan nimanku waa niman ciidana waa niman la tababarayo tababarkii baa u dhamaaday waxa u dhiman oo kaliya soo qaadid sida daraadeed dadkii dawladda Soomaaliya mucaaradka ku ahaa oo haddana iyagoo mucaarad ah systemkan kan u mareeyay dadkii laga nixeebaan anagu ku jirnay aniga shakhsiyan waxaan ku jiray dadkii ka naxay waxa ilaahay mahadiisa ah oo ilaahay aan ugu mahad celinayna mahad dhulka iyo cirkaba ka weyn helitaanka iyo wicitaanka ayna soo waceen qalbigii baa noo degay waalidkoo dhamina way ku qancayaan cid kasto oo ehel way ku qanci doontaa Soomaaliduna way ku qanci doontaa sida daraadeed dadkii mucaaradka ah waxaan leeyahay war walaalayaal waxba la dhisayaa inta yaroo la dhisayo ummadda ha ku kicinina balaayo wixii la soo maray waa wada ognahay dhibaatadii waxbarasho la'aantii silicii dhimashadii wixii rafaadkii gaajadii arab oo nagu wiirsato oo saan noo fiiriso yiraahdo qaxba bahra ila beledك dhii jiray ilaahay waa naga koriyay maanta wadankii waxba ka soo ifay in yaro nabada baa la helay yaan dadka la isku gubin yaan balaayo loo hirseedin warkadaaya sidaas ma aha xaalka wadanku maalinba maalinka ka dambaysa uu soo hagaagaya ilaa 2000 ninba meel buu soo geeyay madaxweyne u dhiibay midba meel buu ka soo qaaday maantana meel bay maraysaa meeshaasna waa laga bixi doonaa qofina uma dhalan meeshan hooyaday aniga waa ay dhashay hooyo kale ima dhali doonto qof saas oo kale xilka u haysan karaa ma jiro hooyo kale oo dib aniga iga dhali doonta ma jirto hal mar baan dhashay qof saas oo xilka inta iska haysto waligi ku dhaganaan doona ma jiro kan yimaadaaba wuu baxayaa ama ha loo sacbiyo ama si kale ha ku tago wuu iska tagi doonaa sida daraadeed dalka yaan lagu burburin danleyda siyaasadeed danley niman baan waxa arkaa mar walba waxay yiraahdaan waxay dhahaan saamileyda siyaasadeed wax saamiley la dhahaa ma jiraan waa danleyda siyaasadeed danley waa niman dana gaar leh kuna qaraabanaya nin walba qaab qaar uu ku qaraabanayo oo si gaar u qaraabanayo dadka qaraabanaya oo danleyda siyaasadeed waxaan leenahay war kasta aad sheegtaan saas uu soo afjarmi doona insha Allah ta'ala cidlaadna ku dambeyn doontaan in kasta oo raadinaysa xumaanta Soomaaliyana guul bay gaaraysaa wanaag bay gaaraysaa horumar bay gaaraysaa nimcay ku dambeyn doontaa way barwaaqoobi doontaa nin xunow lagu waa halkaas war xunna halkaas lagu waayay inta dhibaatada iyo balaayada ka shaqaysana ilaahay halkaas oo kale ku soo reebi doona meel ebra iyaga bay la hari doontaa dadka masaakiinta ana ilaahay guul iyo gobonnimo siin doona Soomaaliyana waxaan leenahay ha guulaysato wiilashaasna haddaan wacaya indhihi nooshana
baan wacayaa aniga iyo maxamed xataa waxa cajiib ah ninkan hadda wici doona oo isaguna la hadli doona oo igarab fadhiya waxay ku ogaayeen Soomaaliya haddaan wacaynaaye nala dhageysta seetahay ma fiican tahay xaaladda ka warrama ma ladantihiin warwa fiican Cabdullaahi kulli waa noo qabnaa rajada waa fiyoyiin xamsal igu dhibalniyo haye waayahay waa kuugu dhiibayaa waxaan rabaa naafac iyo adiga iyo ninka la yiraahdo wiilkii madiga ahaa in siyaad ahaa isagu ma nool yahay waxana la ku yiri meeshaas askartii la qaaday oo eletriya la geeyay waa la laayay dagaal baa loo qaaday cidi kama harin baa la yiri arintaas maxaa ka jira ma cid baa la idin ka qaaday warina lama qaadin xirada horta aniga deganaa dadka 3 kun baa joognaa cidna lama qaadin dagaalna maana galin niyo hadda waa fiican reas been way kullina waa fiican hal weel baa wax cunaa waa fiyoyi okay marka imisa ahaydeen dhalinyaradii Soomaaliya laga soo qaaday wallahi niyo hadda ma sheegi karo tiradaas aniga ha laakiin dad badan baa ahaydeen dadkii ni badnaa oo Soomaalida la soo qaaday wixii ni mudug laga soo qaaday waa dhantiin Soomaa ha waa dhanna niyo waa fiyoona hadartan macalimiinna waa la taagan tahay meelaas ma gali karee dada waalidiinta dulli wixin baa joogay maxamed deeri u dibaan mar haye waayahay la hadal maxamed وريا عبد الله ويلي واجد لا hadana sirxa ku dhufan maxaa dhacay walaal maxaa dhacay kada garsoor ay maali day hee niyo niman hadarta walaal ma jooga iyagana lambar laga qaban way had jooga marka waxa lambar inaad ku siiyo oo Soomaali joogo waxa la niyo ilmiino oo tiri jooga hadarta in baa lambarka ka waca oo lambarka aad si raba dad hadarta wali aan lambarka laga qaban baro inaan lambar u wacay hayana u wacay lambarada oo ii sheegaysaa waxa ii sheegtaa naafac seeyaha naafac waa fiican niyo hoogi baba u shidee insha Allah rag baa noqonaysaana waxa iiga warantaa cunugii madiga ahaa ma haysaa cunugii madiga ahaa gacanta ku haya gacanta ina siyaad gacanta wala jooga ma igu dhiibi kadhaa may hadda xirada jiraan xirada banaankeena joognaa hal lambar ku sheegay noo wac war maalin la weytaan wareeray oo waxaan damcay waxa la igu yiri saxaba kama jiraan been way propaganda hal lambar noo wac niyo Bukhari shukri miya ciidankiina ku jira wallahi niyo hadda ku nala joogo kuma jira umaleynaya hadii ku naga horeeyo isku jirin war alxamdulillah hadaan nooshiin reerkiidin war wadankii mar horaan ka soo tagaani wadankii waa ka soo taganiyow Sweden buu joogaa ninkani anu xagee joogtaa hadda xaafadii oo ilaalisa war Sweden baa jooga lambarka maada fiirin miya ana iyaga samiya taas hadda ma maqlaysaa wariya Cabdullaahi Xaajiyo wadada lambarka ka soo wacnay waa tir Cabdullaahi Xaajiyo dal boosha isku shibani ma aqaan lambarkaani wareeda fiiri day saas ma ahane warninku aninka kula hadlaya waa Imraan nin la yiraahdo ma taqaanaa Imraan niyo waa maqli jiray waa arki jiray niyo ha Imraan weeye Sweden baan joognaa hooyo xalwo iyo dhammaan dadkii oo dhan waxay yimaadeen Sweden bay joogaan Maxamed Sayler waa joogaa Bashiir kulli sheekeeye dadkii oo dhan Sweden bay joogaan ma fahanti ina meerasmiya ila meerayso waa ila meerayso ku maqlayaa hadda ku jira mid ka daray lambar ku siinayaan iyo macluumaadka la taagan dad walaali wili lambar aan wacan ii sheeg waaye dadka lambarkooda ii sheegan dadkooda u qoray ii sheeg ani hadda ugu soo celi caaw lambarka sheeg lambarka waa 9 ulmud 9 okay lixal fura 9 haye 31 wiilkaas magacii marka magacaad mid kale ku daraya haye iigu dar waa 8 waa fura 8 oo hormuuda miya konton iyo labo 97 isagana maxaa la yiraahdaa aabihiis wiilka jooga ku soo wacay lambarka qabo macnaha qofkan la yiraahdaa qofka macnaha lambarkan wata
مسيرة قربي كان لمبرك وتبحث مركبي عمر قفك لمبرك عبد الله النونة عبد الله والله موبايلك ها نافع ما لها الكراد اليوم نافع isaga waa idin la joogaa Soomaa hadda ma jooga ma kula jooga ay lama reeso hada waxay la socdo deeq Cabdiwadan bas deeq igu dhib marka ayo warseedi seetaay seedi waa fiican xaaladda ka hor seedinimada ka dhow waa malaynaya niyo waa wadnahayna soo bixiyaan waxayna yiraahdeen qolaa waxayna dhaheen waa la laayay ciyaalkii dagaal baa la geliyay balaayo waa naga nixiyaan ma fahanti wala intaas oo biloodna annagu tababar baa ku jirnay lambarna ma helin hadda laakiin tababarkii waa noo xirmay waxaan jeclaa mar dhowna inaan dalka soo aadanaan jeclahay saa darteed telefoonadana nalagu fasaxay beer lambar baana u wacaynaa saylar hal mar igu dhiib والله هذا قو ولا قبل معنا دمشقية يا واحد كل هذا نكال والعاصمات قباوانا إيش الفارس وانا صوص على السوق ده كدك دقندي ورهي أنا الله يهدي له ماي بارلين بكربت الله هذا البارلين هي أبو وساتا وفي عنا ما شاء الله عدك قدام مقلنا وكفر حسنا ما فهمت أبا يا ضوي أبنا وأنا أشيء ولا لا يعني قدر كاش كنا ولاي عرفتي أنا وفي عنتي مردنا واحد جعل هنا صباحنا هيا ويا إن شاء الله نصوف العش أنا كأني سوا عين ضد بدن بهذا في لقول شراء وإن السلام يا أبو هيا ولا اللي هيا ضد بدن باخذ تليفونك شوية هيا الحمد لله هلا والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هيا walaalow wiil baa magacaagu waxa iiga muhiimsan wiil baa wuxuu iga soo wacay Eritrea anigu Sweden baan joogaa yar walaalo kay ah iyo kuwa kale oo ilma adeertay oo askartii la qaaday ah baa wuxuu iga soo wacay Eritrea wuxuu yiri walaalkay baan u baahanahay iyo ehelkaygii marka lambarka siibu yiri ma tahay ninkaas nambarkaygu way kan umarkan garabay buu ahaa ninkay ila hadlayay yar garabay waa jira askarti oo Eritrea loo qaaday ku jira ani walaalkay waa aniga yar garabay way waka wiilkaas walaal isoo wacay annaga la hadalay annaga waxana soo wacay wiil walaalkay ma fahanti waa garti marka kii walaalkay ahaaba buu ag joogay fayl baa loogu jiray lambarka marka wuxuu yiri dadkaas oo iyaguna raba in ehelkood loo waco lambarka si ay u soo wacaan iyaguna marka waka wuuna caafimaad qaba uu fiican yahay de wixii kale ta idinka ka wada hadli doona laakiin kolba waa nabdoon yahay sida annaga oo kale aan u naxsanayn oo u moodeynay in dhibaato ka dhacday oo dadkii la laayay oo kale ba idinkuna saas u qabteen dabcan saasanu qabnay sidii Ethiopia oo ciidankii Ethiopia disay meesha oo Ethiopia marka isdirirayso oo iyaan ka maqan markii hore maba joogaanba nimankan tababar bay ku jiraan meel gooniyayna joogaanba shaqaba kuma lihin bay dhaheen waxa anaga tababar baan ku jirnay cid iyaga laga qaaday waa weydiinay waxaan yiri ciidamadiini iyo cid la qaaday iyo ma ku jirtay war tababar baan ku jirnay baa la yiri shaqana kuma lahayn waxa cidina nama qaadin haddana tababarkii waa noo dhamaaday bay dhaheen laakiin lambarka aan ku siiyay qoro marka ma qoran kartaa qoran karaa waxa weeye lambarku eber haye 29 17 waa 17 waxa ula jeedaa 17 waad fahmaysaa bay ila tahay 17 haye 27 shan waka wac marka oo de idinku idin rabaayo waca insha Allah wala waa mahadsan tahay hadda xagee joogtaan aniga Sweden baan joogaa walaal Sweden baan joogaa Sweden baan joogaa aniga insha Allah walaal waa mahadsan tahay khayran ku rajaynaa walaal haye walaal aad baan mahadsantahay aad mudan walaal haye insha Allah intaasaan ku soo gabagabeynaya waxaan idinkaga tagayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nooli kulanteed ishii bugtooyi ku bikacso